السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي الكسول وهذا ما أنت إيه مقال أصلا. هذا هو مقال كنا من حكوس أبسني هاي مقال كنا ما أنت عن كذا هذا دونا وما حي سرت جوشة وحكوسو كوينا حل ري أو داعب نمو وما حي داعب نمو حلها يانس داعب النقطة يا سيدين داعب النقطة هذا بقى لبشي يعني مهمة إن المرور بداعب النقطة مركب كوبات وإن السميسا ama aad fulisaa oo aad daacad u noqotaa fulinta amarada Ilaahay uu ku faray. Kow marka labaad waa inaad daacad u noqotaa shaqada adiga aad hayso. Shaqada aniga aan haysan daacad ugu noqdaa. Shaqada aad hayso waxa daacad ugu noqon kartaa in aad mar walba oo xilliga shaqada ay taagan tahay aadan ku mashquulin wax kale oo aan telefoon ku mashquulin oo aadan wax aan shaqadaas in aad waqtiga gelin. Sidoo kale waxa daacad ugu noqon kartaa shaqadaada oo aad horumar ku gaari kartaa oo aad guushaada ku gaari kartaa in aad soo kacdo xilli hore maxaa laga jeedaa haddaba waxaad ogaataa dadka adduunka horumarka gaaray oo noloshooda horumarka gaaray oo taajiriinta ah waxa kaliya ay maanta horumar ku gaareen waxa waaye early in the morning inay soo kacaan. waxaa jirto xigmad dhahaysa man dalaba al-ula saara layaali oo laga wado qofkii raba darajo sare inuu gaaro hamiinadii soo jeedaa inaad hamiinkiisa xilli hore soo kacdo aad cibaadaysato salaatu leyl aad dukato ilaahay aad ka cabsato quraankii aad akhriso kitaabkii Allah subhanahu wa ta'ala aad akhriso in aad mar walba Allah ku xirnaato shanta salaadood aad waqtigooda ku ilaaliso waa taa mid Allah aad ugu daacad noqonaysaa waxyaabihii ama amarada uu ku faray xumaanta uu ka reebana iska diiso.